haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe inoo saar mahadsanid. salaamullaahi calaykum asxaabteena qiimaha badan meel kasta oo joogtaan waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee noola socotaan. sheekadii ninkii faragaabka ahaa ee ku noolaa dhulka hoostiisa iyo labadii qayaanoole. beri waxaa jiray boqor taajir ah kaasoo aalaaba jeclaa inuu booqdo beertiisa raaxada, halkaasoo oo ka baxay geedka loo yaqaano tufaaxa oo aad u bislaaday. maalin maalmaha ka mid ah boqorkii oo la hadlayay geedkiisa tufaaxa ah ayaa yidhi, haddii uu qof ku dhiirado inuu xado mid ka mid ah miraha tufaaxiga waxaa lagu aasi doonaa geedka hoostiisa. nasiib darrase arrintii ayaa u dhacday sidii uu yidhi boqorka. boqorkii ayaa amray ciidamadiisa in ay si wanaagsan u waardiyeeyaan beerta habeen iyo maalinba, isagoo ku adkeeyay in aan loo ogolaanin in beertiisa uu soo galo hal qof. boqorka ayaa waxa uu lahaa hal gabar oo keliya, taasoo lagu magacaabi jiray amiirad fartuun. aad ayuuna u jeclaa. maalin ayaa amiirad fartuun soo aaday beerta. inkastoo uu boqorka ka mamnuucay dadka beerta, haddana askarta kama aysan hor istaagin amiiradda inay ka celiyaan beerta. arrintaasi amiiradda ayaa aad u jeclaatay in ay xabad tufaax ah ay ka cunto beerta, iyadoo durbadiiba geedka ka soo goosatay xabaddii tufaaxa ahayd. isla markii ay goosatayba tufaaxa, amiiradda waxaa la go'ay dhulka, kadibna dhulka ayaa caadi ku soo laabtay. markii ay maqleen dhawaaqa gabadha, askartii ayaa durbadiiba goobta soo gaaray, hase yeeshee waxba ma aysan arkin. aad bay uga naxeen markii ay ogaadeen in amiiradda uu la go'ay dhulka. markaasi kadibna waxa ay u soo carareen dhanka qasriga si ay ugu sheegaan boqorka wixii dhacay. boqorkii ayaa isla markiiba u sheegay askartiisa in dadka la gaarsiiyo hadalkiisa ah, qofkii soo helaa gabadheeda waxaan siin doonaa abaalmarin weyn oo qiimo badan. maalin maalmaha ka mid ah 3 nin oo ugaarsato ah ayaa hal mar boqorka u yimid si ay ugu bandhigaan in ay doonayaan in ay soo badbaadiyaan amiiradda. 3dooda ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Bashiir, Muudey iyo Cabdi. kan ugu da'da yar ayaa la oran jiray Cabdi. waxa uu ahaa nin akhyaar ah oo aad u naxariis badan. taa beddelkeeda Bashiir iyo Muudey waxay ahaayeen rag khiyaano badan. boqorka oo arrintaasi aad ugu farxay ayaa dhammaantood ka codsaday in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan soo badbaadinta gabadhiisa. waxay aqbaleen codsiga boqorka, goobtana waa ay ka dhaqaaqeen. markasta Muudey iyo Bashiir waxay ahaayeen kuwo ku jees-jeesa saaxiibkood Cabdi, iyagoo ku tilmaami jiray in uu yahay doqon, maadaama uu ahaa qof daacad ah isla markaana ka dhalinyar. intii ay ku guda jireen howlgalkooda ayaa waxay arkeen qasri qadiimi ah, waxayna go'aansadeen in ay ku nastaan halkaas. Bashiir ayaa soo jeediyay in abaalmarinta ay qaybsadaan haddii qof ka mida uu helo amiiradda. labada kale waa ay ogolaadeen soo jeedinta Bashiir. Bashiir oo hadalka qaatay ayaa yidhi, hagaag aan isqaybino, hal qof ayaa ku hari doona qasrigan si uu raashinka noogu diyaariyo, halka labada kalena ay soo raadin doonaan gabadha. dood dheer kadib Bashiir ayaa go'aansaday in uu joogo guriga, halka labada kalena ay soo raadinayaan amiiradda. Cabdi iyo Muudey ayaa israacay si ay u soo raadiyaan amiiradda. Bashiir oo shitay dab ayaa bilaabay in uu diyaariyo raashinka. carafta raashinka ayaa soo jiidatay nin faragaab ahaa oo ku noolaa dhulka hoostiisa. waxa uu ahaa nin aad u gaaban, isla markaana wato dhar jeexjeexan. ninkii faragaabka ahaa ayaa ku soo dhawaaday Bashiir, isagoo ka codsaday in uu siiyo raashin, maadaama uu yahay nin aad u baahan oo aan waxba cunin dhowr maalmood.
Bashiir oo hadlaya ayaa yiri, waryaa ninkani gaaban ee foosha xun meesha ka dhaqaaq, maxaa yeelay ma mudnid inaad raashinkayga cunto. Faragaabkii waa uu carooday, isla markiiba wejigiisa ayaa aad isku bedelay caro darteed. Durbadiiba waxaa kacday duufaan xoog badan, taasoo boodh badan ku kicisay Bashiir. Duufaantii markii ay dhammaatay ayaa waxaa la arkayay Bashiir oo wejigiisa ay ka buuxsameen boodh iyo wasakh. Dhanka kale, Cabdi iyo Muudey oo in muddo jidka kusoo sheekaysanayay ayaa ugu dambeyntii kusoo laabtay guriga. Waxay bilaabeen in ay ku qoslaan kadib markii ay arkeen saaxiibkood Bashiir oo aad u fool xumaaday oo wejigiisa uu qariyay boodh. Bashiir aad buu u xanaaqay, balse markii dambe waa uu istajiyay, waxaana uu ku fikiray in arrintani oo kale ay markooda ku dhici doonto. Maalintii xigtay, Muudey ayaa guriga ku hadhay, halka ay Bashiir iyo Cabdi isku raaceen kaynta si ay u soo baadigoobaan amiiradda. Isagoo ku mashquulsan diyaarinta raashinka Muudey, waxaa mar kale soo muuqday ninkii faragaabka ahaa. Muudey aad buu ula yaabay. Ninkii faragaabka ahaa ayaa Muudey ka codsaday in uu siiyo raashin, maadaama uu yahay nin aad u baahan oo aan muddo cunin wax raashin ah. Sida saaxiibkiis Bashiir, Muudey waa uu ceyriyay ninkii faragaabka ahaa, taasoo keentay in uu aad u cadhoodo ninkii faragaabka ahaa. Duufaan xoog leh ayaa mar kale ku kacday Muudey, taasoo ka dhigtay mid aad u foolxun. Markii ay soo laabteen, Cabdi iyo Bashiir waxay arkeen Muudey wejigiisa oo aad u wasakhoobay, waxayna bilaabeen in ay ku qoslaan. Bashiir iyo Muudey ma aysan sheegin waxa ku dhacay, mana u digin saaxiibkood Cabdi, maxaa yeelay waxay doonayeen in uu wajaho dhibka ay wajaheen oo kale. Maalintii xigtay, Cabdi ayaa guriga ku hadhay si uu u diyaariyo raashinka inta ay maqan yihiin saaxiibadiis. Mar kale waxaa yimid ninkii faragaabka ahaa xilli uu Cabdi ku mashquulsanaa karinta raashinka. Faragaabka ayaa bilaabay in uu weydiisto Cabdi raashin, maadaama dhowr maalmood uusan wax cunin. Laakiin markan xaaladda waa ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii hore. Cabdi ayaa ku yiri faragaabka, faragaab soo dhawow, halkan imaw oo cun xoogaa hilib ah. Isagoo marna fikiraynin ayuu durbadiiba siiyey xoogaa hilib ah ninkii faragaabka ahaa. Ninkii faragaabka ahaa ayaa bilaabay in uu cuno hilibkii la siiyey. Markii uu cunay hilibka kadib, faragaabkii ayaa u mahadceliyay Cabdi, isagoo weydiiyey waxa uu yahay iyo sababta uu halkan u yimid. Cabdi ayaa la wadaagay ninkii faragaabka ahaa dhammaan arrimihii jiray. Ninkii faragaabka ahaa ayaa yiri, waxaad hesho goobtii saxda ahayd, waxaan ku tusi doonaa waddo dhulka hoostiisa marta, taasoo kaa saacidi doonta inaad hesho amiiradda. Qasigana waxaa ku yaalo ceel waa hore guray, halkaas oo aad ka heli doonto waddo kuuga hagi doonto meesha ay ku xiran tahay amiirad Fartuun. Waxa uu intaasi ku daray in amiiradda lagu xidhay halkaasi kadib markii ay ku xadgudubtay amarka aabaheed. Markaasi kadib waxaad awoodi doontaa in aad halkaasi ka sii dayso amiiradda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Faragaabkii oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, waad inaad xusuusnaataa in hawshan kaligaa qabato, iskana ilaali ragga saaxiibadaada ah ee kale, maxaa yeelay waa qayaanolayaal kuwaasi. Odayga ayaa Cabdi siiyey faraanti, kaasoo u sheegay in uu isticmaalo marka ay jiraan xaaladaha degdega ah. Cabdi ayaa aad ugu farxay arrintaasi kadib markii uu helay hab fudud oo uu ku badbaadin karo amiiradda. Cabdi ayaa u sheegay arrintaasi labadiisii saaxiib. Sidii uu u sheegay ninkii faragaabka ahaa, saddexdii saaxiib waxay arkeen ceel ku yaala
dhabarka dambe ee qasriga qadiimiga ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Bashiir iyo Muudey aad bay uga naxeen markii ay arkeen dhererka ceelka. Hase yeeshee, Cabdi ayaa sheegay in si mutadawacnimo ah uu ceelka u galayo, gabadhana soo badbaadin doono. Labada saaxiib ee kale ayaa durbo ku farxay arrintaasi, waxayna gunta hoose ee ceelka u direen Cabdi iyagoo isticmaalaya xadhig. Cabdi ayaa durbadiiba helay waddo loo maro halka ay joogto gabadha. Markii uu arkay, durbadiiba waa uu jeclaaday, waxaana uu ugu dambeyntii soo badbaadiyey amiiradda oo ku xirnayd god ku yaala gunta hoose ee ceelka, halkaasoo ay ku jirtay in muddo ah. Iyadana aad bay ugu faraxday in ay aragto wiil dhalinyaro ah oo ku dhiiranaya in uu badbaadiyo. Iyagoo in xoogaa ah meesha isku weydaarsaday xogo badan, ugu dambeyntii Cabdi ayaa gabadha saaray salladda, kadibna waxaa kor u qaaday labadiisii saaxiib ee kale. Bashiir iyo Muudey ayaa iyana aad ugu farxay markii ay bannaanka u soo saareen. Mar kale ayay salladdii ceelka ku soo celiyeen si uu u soo fuulo Cabdi. Laakiin markii uu Cabdi isku dayay in uu fuulo salladda, ayaa waxa uu soo xasuustay oraahdii ninkii faragaabka ahaa. Cabdi ayaa go'aansaday in uu tijaabo ka qaado saaxiibadii, waxaana uu dhagaxyo ka buuxiyey salladdii si uu u ogaado waxa ay samayn doonaan. Maadaama ay aad uga masayreen guusha uu gaaray ee ah in uu soo badbaadiyey gabadha, ayaa Muudey waxa uu ku dhaqaaqay in uu jaro xarigga. Muudey oo hadlaya ayaa yiri, Allah, xarigga wuu go'ay. Salladdii ayaa durbadiiba ku soo dhacday gunta hoose ee ceelka. Cabdi ayaa arrintaasi aad uga argagaxay kadib markii uu ogaaday xaasidnimada saaxiibadiis. Bashiir iyo Muudey ayaa isla markiiba fiiriyey jiridda ceelka, si deggan ayayna u dhageysteen. Markii ay maqli waayeen wax cod ah, aad bay ugu farxeen, iyagoo u malaynayay in Cabdi uu sidaasi ku geeriyooday. Si farxada ayay uga soo dhaqaaqeen halkaasi. Markaasi kadib, Bashiir iyo Muudey waxay u sheegeen amiiradda in Cabdi uu ku geeriyooday ceelka kadib markii uu xadhiggii la go'ay. Kadibna Amiirad Fartuun ayaa arrintaasi aad uga naxday, aad bayna u oysay. Bashiir, Muudey iyo Fartuun ayaa dib ugu soo laabtay qasriga, taasoo keentay in boqorka uu arrintaasi aad ugu farxo, waxaana uu abaalmarin qiimo leh siiyey Bashiir iyo Muudey. Hase yeeshee, waxa ay ku heshiin waayeen cidda guursanaysa amiiradda. Boqorkii ayaa arrintaasi aad ugu wareeray. Tan iyo markii ay amiiradda ku soo laabatay qasriga, waxay gashay xaalad murugo ah, taasoo ka dhigtay in ay hadli kari weyso. Boqorka ayaa isna aad uga walaacsanaa arrintaasi, waxaana uu garan waayay wax uu sameeyo. Isagoo ku dhibaataysan kuna xaniban gunta hoose ee ceelka, Cabdi ayaa ugu dambeyntii waxa uu halkaasi kula kulmay ninkii faragaabka ahaa, kaasoo ka caawiyey in uu ka soo baxo ceelka. Cabdi ayaa faragaabka uga mahadceliyey caawinaadiisa, kadibna waxa uu yimid qasrigii boqorka, halkaasoo uu kula kulmay boqorka iyo gabadhiisa. Amiirad Fartuun ayaa arrintaasi aad ugu faraxday, soona dhaweysay Cabdi. Boqorkana aad buu ugu farxay in uu arko gabadhiisa oo aad u faraxsan, isla markaana hadli karta. Fartuun ayaa u sheegtay aabaheed in uu Cabdi ahaa
qofkii soo badbaadiyey. Cabdi ayaa isna boqorka u sheegay in Muudey iyo Bashiir ay aad u xun yihiin, isla markaana ay isku dayeen in ay dilaan. Boqorka ayaa aad uga carooday arrintaasi, waxaana uu amray ciidankiisa in ay soo xidhaan Bashiir iyo Muudey. Askartii ayaa durbadiiba xabsiga u taxaabay labadii nin. Boqorka ayaa si wanaagsan u abaalmariyay Cabdi, isagoo ugu dambeyntii gabadhiisa ku daray. Cabdi oo ahaa wiil dhalinyaro ah, daacad ah, isla markaana akhyaar ah. Halkaas ayaana loogu dhigay xaflad aroos oo aad u qurux badan.